markaan qofka dhisay bay dunidii dhisantay qiso laga yaabo inaan hore u sheegaan tilmaamaya nin ka mid ah dadyawa kan qoraaga ah oo lagu tilmaamaba malaan nimanka qoraagoodu dunida ugu badan yahay wax loo publish gareeyaba waa Brazilian Paulo Coelho baa la yidhaahdaa ninka kan Paulo Coelho ee Brazilianka ah waxyaabo qoray waxaa ka mid ah qiso yar alqisas alqasiira sheekooyinka gaagaaban sheeko yaroo gaaban buu qoray oo sheegaysa oday baa jariidada akhrinayay buu yidhi dabeetana midh yaro uu dhalay baa mashquuliyey markii uu mashquuliyey ayuu is yidhi kan yar iska jeeda aad noo mashquuli jariidada bage ay khariidadu maabka dunidu ku sawiran yahay buu intuu soo gooyey oo googooyey ayuu yidhi isku hagaaji ka soo saareen maabkii dib u dhis wuxuu islahaa kaa yar waad iska dirta oo kaa maqnaanaya wuxuu sheegayaa intii aanu rubuc saacba fadhinin yarkii wuxuu yidhi waan dhameeyey waa kan maabkii dunidu odaygu wuu yaabo wuxuu yidhi war ma hooyadaba jugraafiga kuu dhigtay buu yidhi markaasuu yidhi may seed u samaysay wuxuu yidhi bejka dhankiisa kale ayaa waxaa ka sawir qof bini aadama sawirku ma isu geegeeyey buu leeyahay gacantii iyo lugtii iyo intii sawirku markuu dhammaado maan xagga kale u rogo dee dunidii oo dhammina maabkiina uu isku hagaagay inanka yari erayaa buu isticmaalay markaan qofka dhisay bay dunidii dhisantay waxay idhaahdaan erayga kan ilmaha yari wuu isticmaalay laakiin waa xaqiiqada jirta bay leeyihin marka qof la dhiso ayay maxay ay dunidii dhisantaa sida awgeed warka dhabta aan markaa tilmaamina wuxuu yahay ummaddii dadkeedu dhalinteedu waa mustaqbalkii ummadda dadkay dhisan yihiin mustaqbalkooda wuu dhismayaa dadka aanay dhisnayna mustaqbalkooda ma dhismayo